ururo kala duwan ay lahaayeen beeraleyda ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta waxa ay sameysteen dalad ay ku mideysan yihiin ee midnimo dhammaan beeraleyda ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa waxa ay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen waxaana gudoomiyaha dalada midnimo ee beeraleyda magaalada Beledweyne loo doortay Ahmed Ali Abdurrahman halka ku xigeenka loo doortay Aadan Cabdullaahi Cabdi goobta ay doorashada ay ka dhaceysay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ee kan degmada Beledweyne iyo wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hiirshabelle Xildhibaan Bashiir Maxamed Daqare ugu horeyntiin waxaa natiijada ku dhawaaqay guddiga u qaabilsnaa doorashadan kuwaas oo ku midoobay hal dalad ay sameysteen oo la yiraahdo midnimo waxayna doorteen gudoomiye ku xigeen xoghaan iyo qasnaj gudoomiyaha waxa waaye iyo xubnooyin ka kooban 8 marka la isku daro 11 xubno gudoomiye waxaan u dooranay Ahmed Ali Abdurrahman oo ku magac dheer Ahmed Jambi qofkiina oo la sheegay gudoomiye ku xigeen Aadan Cabdullaahi Cabdi dhanka kale waxaa hadal kooban goobta ka jeediyay gudoomiye ku xigeenka degmada Beledweyne sidoo kale gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali anaga insha Allah ilaahay idinkiisa markuu ugu horeyso horta waxaan idin diraa hambaliyo waa idin soo dhaweynaa anagoo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Beledweyne waxaan idinku soo dhaweynaa si ixtiraam leh waxaan idinku soo dhaweynaa si amni waxaan idinku soo dhaweynaa sida bulshada qaybaheeda kala duwan aad ugu wadishiin iskaashatooyinka waxaan leeyahay hadda waa isdoorateen waa isu soo falanqayseen baryahan 16 iskaashataa noqoteen magacaa la baxday midnimo markay iskaashatooyinka meelo ka duwan kala yimideen Beledweyne daafiisa ka yimideen midnimo la magac baxdeen sida hadda aad sheegteen iskaashatooyinkan 16 saacada bulshada waa iskaashatooyinkii shahaadada wasaaradda beeraha haysta oo aad intaa kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha cusub Ahmed Ali Abdurrahman ee loo doortay gudoomiyaha midnimo ay ku mideysan yihiin beeraleyda ku dhaqan magaalada Beledweyne iyo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka beeraleyda magaalada Beledweyne ururka midnimo haddaas ayada iska leh maadaama ay doorateen aniga mas'uulkaas inaan qaado waa mahad alla ugu sabab waxaan iga codsanayaa dadweynaha ay doortay iskaashatooyinka inay xilkaas ila qaadaan waxay u baahan yihiin dadka marka wax qabad iskaashatooyinkan in beeraha wax looga qabto waxay arkeen in maaragtay wasaaradaha ay wax kasta u xil saaran yihiin oo beeraha iyo maaragtay hay'adaha quseeya beeraha aysan soo gaarin saas darteed markay iskaashatooyinka waxay sameeyaan isku tashi iyo midnimo inaan loo dhaxaynin wasaaradda beeraha iyo iskaashatooyinka ugu dambeyntii ayaa waxaa soo gunaanaday wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hiirshabelle Xildhibaan Bashiir Maxamed Daqare wuxuuna sheegay in ahmiyad weyn ay u leedahay ururkan ee midnimo gobolka Hiiraan qaybta arrimaha bulshada ayaa shaqooyinkaani gacan weyn kale ka wasaarad ahaan waxaa hawshaan ugu sii tagaynaa oo inay iskaashatooyinka la shaqeeyaan aan faraynaa ama aan ka codsanaynaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada shaqo waxaan ayaan leeyahay hawshan ayaa meeshaas ka sii wadi doona insha Allah waan ku soo laabanaa Cabdinuur Cusmaan Aadan Carays idaacadii TV-ga caalamiga SBC magaalada Beledweyne